وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فصل هذا فاصل كي وحكلا سارة أركان الخطبتين لبدا خطبة تيرر كذا 5 شنوة. حمد الله إلهي مهدين تيس فيهما لبدا خطبة إنه إلهي كم مهدي. حمد الله إلهي مهدين تيس فيهما لبدا خطبة دحدة. جابر بن عبد الله وحو النبي عليه الصلاة والسلام كشيغي إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبة مالنت الجمعة خطبة وحو يري فحمد الله وأثنى عليه إلهي بو مهديي إلهي نو أماني. مسلم أياه صاري حديث كاس والصلاة صليت عليه على النبي قال له صلي فيهما لبدا خطبة دحدود النبي قال له صلي النبي قال له صلي لبدا خطبة دحدود وواجب waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna min afdali ayaamikum yowmu ljumcati maalmihiina maalinta ugu fadliga badan waa maalinta jimcaha fiihi khuliqa aadamu maalintaas ayaa waxaa la abuuray aadam la abuuray jimcaha wa fiihi nafkhatu maalintaas ayaa buunka la yeeri doonaa wa fiihi waxaa ku sugan assacqatu suuxinta dadka ay suuxayaan buunka marka la yeeriyo ay suuxayaan maalintaasay ku jirtaa فأكثروا بدي علي دشيدا من الصلاة صلاة فيه مالنت سنو إيقو صليسان صلي جيدا بدي مالنت الجمعة صلي النبي إلا بدي ويمرك خد بدنا إن لغو صلي وواجب هدي لغتاقو ما بقى أنساه سوا والوصية دردارا بالتقوى الله كعبس الله يسوق دردار ما فيه ما دحدودا لبدا خطبة دحدودا إنو أمد دردار ما إن أي إلهي كعبسدان عبسد الله إنه أمده ودردار واجب والوصية دردارا بالتقوى عبسد فيه ما دحد ودردار. جابر بن سمرة وحير أن النبي كان وحوها في الخطبة يقرأ وحو أخرج آيات آيات من القرآن كمذا ويذكر الناس ضدك وحسوسي جري إلهي وحسوسي جري رواه مسلم باوري حديث كاس. وقراءة آية أخرين تيدا آية واجبة ومن قرآن كمدة آية تيررك كمدة في إحداهما لبدا متكوت لبدا خطبة متكوت إنه آية قرآن كو أخريو لازم حديث هشام بنت حارث أنها قالت وحيتر حفظت سورة قاف أيان كحفظي من في رسول الله على المنبر رسولك أفكيسا كحفظي oo minbar ka saaran waliba rawaahu muslim baa wariyay xadiidkaas. gabadhaas waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam suuratu qaaf ayuu wuxuu ku soo qaadan jiray khudbadiisa rasuulka afkiisan ka xifdiyay oo minbar ka saaran waliba waa dad ilaahay waxay ahaayeen maskax siiyey qur-aankuna ma dhibaynin iyaga ila luqadoodii buu ahaayeen. وقراءة آية أقرن تدو من القرآن كمذا يا ركن أركان كمذا في إحداهما لبدا متكوت. والدعاء يا واجب للمؤمنين مؤمنين تلو الدعاء مؤمنين تلو الدعاء وشيء واجب مؤمنين تلو الدعاء واجب وأركان تبكمذا. والدعاء للمؤمنين مؤمنين تيا والمؤمنات كلو الدعاء قبلها مؤمنات في الأخيرة التحيات كمحوها خطبة الضنباء سمورة حديث كيسا يا حكمنا كان يستغفر للمؤمنين مؤمنين تأيودا بداف ويديجر والمؤمنات قبلها مؤمنات في كل جمعة كست بزار أي سند لينا كوري حديث كاس marka khudbadu waxay leedahay 5 arkaanood ay leedahay 5 tiir ay leedahay 5taas tiir hadii tiir kamida oo baxo way dume in ilaahay lagu xamdiyo in nabiga lagu saliyo in cabsi alla ka cabsi la isku dardaarmo in aayad quraanka kamida lagu aqriyo in loo duceeyo muuminiinta 5taas tiir ay leedahay hadii hal tiir oo kamida lagu waayo waa eber. faslun hada faslun ki wax kala saaray shuruudul khudbatayn labada khudba shardiyaashoodu 10 way shuruudu waa intaan la guda gelin wayaan intaan iyada banaanka laga taagan yahay arkaantuna waa marka iyada la dhex taagan yahay khudbadii intaan la akhrin oo imaamku uu soo gelin maxaa laga rabaa isaga
10 toban shardi baa laga rabaa addahaaratu inuu daahir ka yahay imaamkii khudbada akhri lahaa khadiibkii can ilxadathayni labadii xadath alasqari walakbari kii yaraa iyo kii weynaaba in uu ka weyse qaad wax waajibiye iyo wax qabays waajibiye waa inuu daahir ka yahay waatahaaratu can innajaasati najaasadii waa inuu daahir ka yahay fi thawbi meeshii maradii iyo walbadani jirkii iyo walmakaani booskii uu istaagnaaba inay daahir wada yihiin waajib waa wa satrulcawrati cawradii la qarinteeda weye cawradii in la qariyaana waajib weye wa satrulcawrati cawradii in la qariyaba ayaa waajiba cawrada wuxuu ahaa cawraadka sida ay yihiin iyo inta la kala qarinaa horaan usoo qaadanay walqiyaamu istaagid wey cala alqaadiri ninkii awooday walqiyaamu istaagid weeye cala alqaadiri qofka awooday inuu istaago waajib waa markuu khudbadii akrinaya waa inuu istaago weye waljuluusu fadhi weye baynahumaa dhexdooda la kala dhex fadhiiso markuu tan koobaad dhameeyo tan kalena uusan bilaaban waa inuu fadhiistaa waljuluusu fadhi baynahumaa labadii khudba dhexdooda fawqa ka sarraysa duma'niinati salaati salaada xasilkeeda in ka sarraysa waa inuu fadhiyaa salaada xasilkeeda in ka badan waa inuu fadhiistaa taas ayaa laga rabaa waaya ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii jaabir wuxuu ahaa kaana yakhdubu wuxuu khudbay jiray nebigu qaa'iman isagoo taagan humma yajlisu wuu fadhiisa jiray humma yaquumu wuu istaagi jiray fa yakhdubu qaa'iman wuxuu khudbay jiray isagoo taagan waaya faman nabba'aka qofkii kuu sheegay annahu kaana yakhdubu inuu khudbay jiray jaalisan isagoo fadhiya faqad kadaba beenuu sheegay faqad wallaahi ilaahay baan ku dhaartay sallaytu waan dukada macahu nebiga maciisa min akthara min ka badan min 2000 salaatin 2000 oo salaadood in ka badan ayaa nebiga la dukaday yiri jaabir bin samura raax saxaabigaasi allah kana noqday muslim ayaa xadiidkaasi warinay marka xadiidkaas muxuuna tusinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu istaag ku khudbay jiray khudbadana uu dhexdooda fadhiisan jiray kadibna uu istaagi jiray khudbadii kale u akhri jiray ayuu xadiidkaasi na tusinaya wa an takuuna walmuwaalaatu xiriirin ayaa shardiga baynahumaa labadii khudba la xiriiriyo walmuwaalaatu xiriirin baynahumaa labadii khudba in la xiriiriyo waajib waayo haddaan la xiriirin shardi ayaa buray wey walmuwaalaatu xiriirin baynahumaa labadii khudbo iyo wa bayna salaati salaada dhexdeedana in la xiriiriyaa waa waajib kale salaadii iyo khudbadiina waa in la xiriiriyaa wa an takuuna waa inay ahaataa bilcarabiyati af carabi waa inay ahaataa waxaa lagu akhrinayaa waa inay carabi ahaataa wa an takuuna waa inay ahaataa bilcarabiyati af carabi waa inay ahaataa sabab maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam af carabi uu ku akhri jiray sidoo kale asxaabu rasuulillaahi alkhulafaau araashiduuna waman bacdahum khulafadii rasuulka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo la jooga xataa dad aan carab ahayn waxay ku khudbay jireen af carabi marka qoladan hadda imaatay oo bidcada ah iyaga ayaa jeeb kala soo baxay bidcooyinka ay keenan ayay kookata in muxuu ahaa khudbadii af soomaali lagu akhriyo iyadoon ka sugnaanin asxaabu rasuulillahi ummadda ayay waxay ku qabsadaan waxaasi nebigu ma samayn nebigu ma uusan samayn asxaabtuna ma aysan samayn asxaabta iyo nebiguba ma aysan samayn inay khudbo ku akhriyaan af soomaali inay ku akhriyaan ama af kaleba ay ku akhriyaan ma aysan samaynin iyadoo dadka lala hadlaana ay ahaayeen weliba dad aan carabiga fahmayn soomaaliga carabiga waa fahmayaanba wa an yasmacahaa waa inay maqlaan oo ay dhegaystaan 40 qof waa inay dhegaystaan ka yar maya haddii ka yar lagu dukadana khudba ma ansixin wa an yasmacahaa waa inay dhegaystaan oy maqlaan 40 qof waa inay maqlayaan wa an takuuna kulluhaa khudbadii dhammaanteed waa inay ahaataa fii waqti duhri waqtiga duhurka waa inay ahaataa waqtiga ay dhacaysahay waa inay waqtiga duhurka ahaato wa an yasmacahaa waa inay dhegaystaan 40 qof waa inay dhegaystaan waajib waay wa idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wansituu ayaa layidhi qofka khudbada markuu imaado waxaa la rabaa inuusan waxba samaynin inuusan cid la hadlayn inuusan cid muxuu ahaa tusbixiisa xataa inuu jalwiya looma ogola tusbax xataa inuu farafarayo meel iska dhig xataa muxuu ahaa masaajidka qarowruxiisa ayama dhagaxiisa jayga yaroo inuu macnaha uu gacanta ku taataabto looma ogola ila nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi
idaa jalasa almimbaru cala alkhatiibi qofkii muxuu ahaa khadiibka markuu mimbarka ku fariisto falaa yatakallamanna axadun qof iyuu hadlin qofkii hadlaa marka faqad laaqa ayuu sameeyey khudbadiisi way burta qofkii muxuu ahaa aan dhagaysanin khudbadiisi way buraysaa khudbada marka waxaa la rabaa qofku inuusan cidna la hadlin inuusan isagu sheekaynin uusan qofna u sheekaynin lalana sheekaysana la rabaa dhammaanteed maxaa la yidhi waa inay ahaataa waqtiga duhurka waa inay ahaataa kitaabuljanaa'isi haadaa kani kitaabuljanaa'isi kitaabkii janaazada wey haadaa kitaabuljanaa'isi kitaabka janaazada haadaa maxaluhu booskiisu halkan waa faslun haadaa faasilun kii wax kala saara waya alladii midka yalzamu u waajibaya lilmayiti meydka u waajibaya 4 khisaalin 4 xaaladood waaye meydka markii qof dhinto waxaa waajib noqonaysa dadka noolna waajib ku noqonaysa isaga waxba ma saarna laakiin waajib dadka ag jooga ayuu ku yahay 4 khisaalin 4 xaaladood 1 qasluhu dhaqidiisa in la dhaqaa waajib ayay dadkii ku noqonaysa qasluhu dhaqidiisa in la dhaqo waajib waay wa takfiinu 2 wa takfiinuhu in la karfaniyo karfan in la saarane waajib bay dadkii ku noqonaysaa 3 wasalaatu dukasho calayhi dushiisa lagu dukado oo salaatuljanaaza in lagu dukadaay waajib waay 4 wa dafnuhu in la aaso oo la duugo 4 taasaa u waajibaysa dhaqidii karfanintii dukashadii iyo duugistii waaya wuxuu leeyahay dhaqidiisa ayaa waajibaysa ummu catiya alansaariya waxaa laga wariyey allah ka ranada qaalad waxay tiri dakhala calaynaa rasuulullaahi waxaa noo soo galay rasuulka ilaahay baa noo soo galay xiina tuufiyat ibnatuhu markii gabadhiisa la oofsaday faqaala wuxuu yidhi iqsalnahaa war dhaqa 3 3 dhaqa aw 5 ama 5 dhaqa aw akthara min daalika ama intaas inka badan in ra'aytunna haddaad heshaanna daalika kaas bimaa'in biyo ku dhaqa iyo wasidrin gob ku dhaqa wajcalna yeela fil aakhirati marka u dambaysa kaafuur iyo wax carfaya aw shay-an ama wax min kaafuurin wax carfaya ah shay carfaya marka u dambaysana ku dara rawaahu albukhaariyu ayaa wariyay xadiidkaas in la dhaqaayo marka waajib waay markii la dhaqane in waxaa loo carfiya waa waxyaaba sunna waa wa takfiinuhu in la karfaniyo oo kafantiisa la saaro waa waajib waay jaabir bin cabdillahi waxaa laga wari nabiga alayhi salaatu wasalaam idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kafanahu idaa kafana hadduu karfanayo axadukum midkiin akhaahu walaalkiis falyuxsin ha hagaajiyo kafanahu kafantiisa ha hagaajiyo qofkaasi karfantiisa ha hagaajiyo maxaa loo leeyahay maalinta muxuu ahaa marka meeshaas la dhigo laga soo kala dareero qofka fiicane wuxuu dhar ka dhiga doonaa oo asxaabtiisa iyo dadkiisa uu kusoo booqanayaa karfantii la siiyey ayuu dadka kusoo booqanayaa karfantii la siiyey ayuu dadka kusoo booqanayaa laakiin qofkii karfantiisu aysan fiicnayn cawradiisana aysan asturaynin dhibaato ayaa haysata waxaa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday gabar ayaa dhimatay saxaabta ka mid ahayd markay dhimatay gabadhii waxaa ku riyootay gabdhaha asxaabta ka mid ah waxay aragtay iyadoon dadkii la baashaalaynin oon baxaynin markaasay tiri maxaa kugu dhacay markaasuu waxay tiri dharka laygu soo kafanay ayaa dhar gaagaaban ah oon cawradeeda qarinayn maxay samaysay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee gabadhii riyada aragtay ee u tagtay rasuul allah waxay tiri saasaan arkay maxaan sameeyaa hooyadeed inay aheedaan u malaynaya maxasuusta atarta xadiiskaas alxasan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maro fiican inta soo gadid ninka hebela ugu dhib isaga u geynaa ninkaas markaas waa u nool yahay adi ninkii usbuuc kadib uu dhintay waa la duugay maradii ayaa lala aasay marka karfantii isaga ayaa godkii lala geliyey habeenkii ninka godka u hoyday habeenkii ku xigay ayay ku riyootay marka waxay aragtay iyadoo faraxsan markaasay tiri
hadiyadii ay soo dhiibtana waa ay soo gaartay oo waa lay keenay waa aniga xiran marka maxay tusinaysaa qofka haddii karfantiisu aysan fiicnayn oo karfan wada gaaraysa aan la siinin loo xirin waa inuusan dhaqdhaqaaqaynin oo qabrigiisa oo maxbuus kusii ahaanaya isagoo xabsi ku jira haddana xabsi kale inuu sii galayo sidaas darteed uu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa kafana axadukum akhaahu war qofkiin hadduu walaalkiisa kafanayo falyuxsin kafanahu karfantiisa ha wanaajiyo karfanta ha wanaajiyo marka taa waxay tusinaysaa in karfanta wanaagsan qofka uu ku socon doono iyada wasalaatu dukasho calayhi dushiisa in lagu dukado waajib wa can abi hurayra waxaa laga wariyey ana rasuulallaahi nacaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay geerida annajaashi fi lyowmi aladii maata fiihi maalinta uu dhinto wa kharaja bihim asxaabtii uu soo waday ila lmusallaa meeshii lagu dukanayo fasafa bihim wuu safay wa kabara calayhi 4 takbiiraatin 4 jeer oo takbiirtay salaadii ku dukaday ayaa laga wadaa bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo saaray wadafnuhu in la aaso ayaa waajibe wadafnuhu in la duugo waajib wey in la duugo waa waajib muxuu ahaa asxaabtii dadkii dhintay maalintii uxud ayuu wuxuu yidhi axfiruu warqada wa awsicuu waasiciya wa axsinuu wanaajiya wadfinu lithnayna aw 3 fii qabrin waaxidin 2 ama 3 iskula duuga hal qabri waqadimuu akharahum qur'aanan waxaad hormarisaan kuwa dadka qur'aanka u akhrinta badan u hormariya waaya marka xadiidkaasi isna sidaasuu tusinayaa in la rabo in la duugo faslun haadaa faasilun kii wax kala saara way aqalul qusli qabayskan ugu yar tacmiimu badani jirka oo la camimo wey la gaarsiiyo tacmiimu badanihi jirkiisoo la gaarsiiyo bil maa'i biyihii la wada gaarsiiyo wa akmaluhu kan ugu kaamilnimada badanna an yaqsila inuu dhaqo weeye saw'atayhi cawradiisa qofka meydka cawradiisa inuu dhaqo u istinjeeyo wa an yuziila ou zuuliyo alqadira qashinka min anfiisankiisa inuu ka zuuliyo wixii qashin ah wa an yuwadi'ahu inuu u weyse qaado wa an yadluka inuu marmariyo ama uu ku rugo badanahu jirkiisa inuu ku rugo bisidri gobka macnaha waxaa laga wadaa wixii ama saabuun ama shaamba ah ayaa loola jeedaa maanta marka la joogo iyaga xilligaasi waxaa saabuun u ahaa gobka ayaa saabuun u ahaa wa an yasuba inuu shubo weeye almaa biyihi calayhi dushiisa 3 jeer waa inuu biyihi ku shubaa wa an yasuba almaa biyihi waa inuu ku shubaa calayhi dushiisa 3 jeer waxaa kaloo kusii jirta in qofkii muxuu ahaa wixii wax lagu carfiyo in lagu shubo sidaas ayaa laga rabaa waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muxuu ahaa oo nabiga gabadhiisa markii la oofsaday ay ka hadlayso mucatiya wuxuu ahaa aan hadda soo arkaynay markii waxaad ku dhaqdaan sidri tira isdheerna ku dhaqa 3 ama 5 ama wixii ka badan intaas haddii aad aragtaan arrinkaasne waxaad ka dhigtaan marka u dambaysa wax carfaya ku dara haddii aad dhammaysaanne iisoo sheega markaan dhammayna ayaan usoo sheegnay aqalul qusli qabays waxa uu yar tacmiimu badanihi jirkiisoo la wada gaarsiiyo bilmaa bihi la wada gaarsiiyo wa akmaluhu waxa ugu dhammaystirnaan badan wa akmaluhu kan ugu dhammaystirnaanta badanne waxay tahay an yaqsila inuu dhaqo sawatayhi labadiisa cawro inuu dhaqo wey qofkii inuu loo istijeeyo ayaa laga wadaa cawradiyaa la dhaqa wa an yuziila inuu zuuliya alqadira qashin min anfiisankiisa sanka iyo afka in wixii qashinoo ku jiro oo ka zuuliyo wa an yuwadi'ahu inuu u weyse qaado sidii qof xayi ah oo nool inuu ugu weyse qaado wa an yadluka inuu ku rugo badanow jirkiisa bisidri gobka inuu ku rugo ama wixii saabuun oo leeli kara wa an yasuba almaa bihi inuu ku shubo calayhi meydkii 3 jeer inuu biyo ku shubo faslun haadaa faasilunkii wax kala saara way aqalul kafani kafan midda ugu yar thawbun mara wey thawbkaasoo yacumuhu qarinaya mara oo jirka wada qarinaysa wa akmaluhu midka u dhammaystirnaanta badan lirajuli ninkii 3 lafaa'ifa 3 maro oo lagu duuduubo 3 lafaa'i 3 duuduub waaye meydkii
ninkii waxa ugu dhammaystirnaan badan 3 maro oo waaweyn oo jirkiisa wada qarinaysa in loogu hadhow muxuu ahaa loogu sameeyo 3 maro 3 karfan oo waaweyn in lagu duubo walil marati haweenaydina qamiisun dirac wa khimaarun hagoog wa izaarun guntino iyo walafaafatani 2 maro oo lagu duuduubo intaas ayada la isku raacina walil marati haweenaydina qamiis waa dirici baa laga wadaa wa khimaarun hagoog iyo wa izaarun andhaho gogorad iyo walafaafatani 2 maro lagu duuduubay intaas ayaa laga rabaa aqalul kafan midka ugu yar thawman maraway thoobkaas oo yacumuhu jirkiisa qarinaya thoob oo jirkiisa qarinaya ayaa laga rabaa maro jirkiisa qarinaysa ayaa laga rabaa waaya cabdullaahi jaabir bin cabdillaahi markii aabihiis ou lama tuwafiya cabdullaahi bin ubayin markii cabdullaahi bin ubayi ou dhintay jaaءu ibnuhu inankiisa wuxuu yimid ilaa rasuulillahi sal alay wasalam faqaala markaas wuxuu yaa rasuulallah actinii qamiiskaaga isii ukafinuhu fiihi aan ku kafanay ay abi aabahay faacdaahu iyahu markaasuu siiyey cabdullaahi bin ubayi bin salool ninkii la dhihi jiro munaafiqiinta ka mid ahaa munaafiqiinta ninkii ra'iiskooda ama u weynaa wey markuu dhintay baa inankiisa wuxuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam ila nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma dukanayo walaa taqum calaa qabri abadan ayaa li qabrigiisa muxuu ahaa ciddii dhimato iyaga ka mid oo ha istaagin qabrigooda la yidhi maadaama loo diiday munaafiqiinta inuu qabrigooda tago si uu bal shafaaco ugu helo aabihiis ayuu yidhi qamiiskaaga isii rasuul allow aan ku kafana aabahay nabiguna wuu siiyey bukhaari ayaa soo saaray xadiidkaas wa akmaluhu waxaa u dhammaystirnaan badan lirajuli ninkii 3 lafaa'ifa 3 maro oo lagu duuduubayo 3 maro oo lagu duuduubayo ayaa u habboon waayahay lixadiidi layla bintu faa'iq athaqafiya radiallahu canha qaalad waxay tiri kuntu waxaan ku jira fii man ghassala gabdhihii dhaqay baan ku jira umma kalthuumin binti rasuulillaahi gabadha ummu kalthuum la yidhaah nabigu uu dhalay cinda wafaatiha markay dhimatay wa kaana wuxuu ahaa awalu maa actaynaa wixii aan siina maa acdaanaa wuxuuna siiyey rasuulullaahi alxiqaa'u ayuu ahaa alxiqaa'u waxaa la yidhaahdaa googorada ay alizaaru googorada thumma dirci ay alqamiis thumma alkhimaaru hagoogti thumma almilxafatu go' weyn thumma udrijat bacda dalika fi thawbi alaakhar kadib waxaa la gudageliyey oo la dhexgeliyey maro weyn ayaa lasii dhexgeliyey marka maxaa loo geliyey balkii googorad diricii hagoogtii iyo go' weyn oo lagu sii duubay kadib markaas haddana maro kale lagu sii daray qaalad waxay tiri warasuulullaahi cinda albaabi macahu kafanuhaa yunaawilunaa thawban intaas markii lasii geliyey ayaa rasuulka ilaahay wuxuu taagnaa albaabka wuxuuna hayay kafanteedii isagoo noogu soo dhiibaya maro dhowr maro inay ahayd baa marka garanaysaa waay waalil maraati maraadii ama haweenaydiina waxaa ugu habboon qamiisa ugu habboon waa dirci wa khimaarun hagoog wa izaarun googorad iyo walafaafatani 2 izaarka badanaa wixii hoos laga xirto wey macawistii ragga ha noqoto googoradii ha noqoto labada waa loo isticmaalaa shayga aan dhaafaynin simaha ayaa waxaa la yidhahdaa izaarka kaasaa la yidhahdaa walafaafatani iyo 2 maro oo lagu duubayo wallahu subxaanahu wa tacaala ambaqadka geediga sida urta loo raro heesa u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebahe iyo adin iyo afwada jira